اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأولاشين أيان لول جنال كان قداوي نسان أيان لول جنال واي أصحابتي جنال كي وكحران عاو حواي ومرقي سنة عاو تعصيا نوتال إنا لله وإنا إله راجعون، إنا لله وإنا إله راجعون، إنا لله وإنا إله راجعون. caawa waxaa geeriyooday odageyga aabihiis mukhtaar aabihiisaa geeriyooday maraykanka gaar ahaan arizona ku geeriyooday. ilaah u naxariisto, ayaamahan buu xanuunsanayay adeer, ilaah u naxariisto. marka waxaan leeyahay asxaabta janalkeega ku xiran noo soo duceey insha allah. adeer maaragtay inoogu soo duceey inuu jannati firdows ilaah uu geeyo. waxaa kitaabkiisa gacanta midigta inuu ilaahay ka siiyo, qabrigiisa inuu ilaahay u waasiciyo insha allah. noo soo duceey asxaabta janalka ayaan luul ku xiran oo dhan dhammaan raaciga saa iskugu duubantihiin. waxaa idin leeyahay samir iyo iimaan adeer allah naga wada siiyo, kulligan wuu naga wada baxay. adeer waxaa waaye adeer wuxuu ahaa aniga agteeda igu weyn. galabtan wallaahi been idinma sheegaya, garabkeega haaf dhana ay baxay markaan maqlay. marka ilaaha u naxariista adeer, wax kala dhehayna ma lahan. galabta tacsida noo taal waxaa muruga gurigeyga galabta taalo. ilaahay ha u naxariisto, annagana gadaashiis ilaahay nama fidneeyo. dhammaan raacigoo dhanna saa u dhantihiin waa idin tacsiyeynayaa. samir iimaan ilaaha naga wada siiyo kulligiin insha allah. wax kalaa dhaama garanayay, intaasaa kusoo koobaya hadduu alla idmo. allah u naxariista adeerkeen macaan. اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، ولا تضلنا بعده. اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه، وألهمه حسن الجواب، وطيب ثراه، وأكرم مثواه، واجعل الجنة مستقره ومأواه. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل إن قلوبنا لتحزن، وإن عيوننا لتدمع، وإنا على فراق فقيدنا لمحزونون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من